الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد دول يسر أصل حسن عبادي وحن كوكسو دوينينا اسكول كنا حامدية انترناشنال اسكول كوكسو دو وأنكرة وحا شرفنا هنا نعاو هلكن كوكسو دوينو هدانا بهذا حامدية دمانتيا waxaa tahay qofkii dumar ah oo mas'uul ah oo macruuf ah oo ugu horeeyay oo iskuulkan aan ku soo dhaweyno culimada ku soo dhaweynay dad kale mas'uuliin xataa nagu yimaadeen laakiin dumarka qofkii ugu horeeyay maadaama aad tahay qof taariikh ku leh ummadda Soomaaliyeed duuliyihii u horeeyay Soomaaliya iyo Afrika gabadhii u horeysay tahay dhakhtarad waliba ah daaciyad ah انت الحمد لله الهي سوق قدري marka aad baan ugu faraxsanahay kulankaaga iyo soo dhaweyntaada caaw iyo imaatinkaaga waana kaaga mahad celinayna naajibtay marar badan inaad nagu soo noqoto ayaan rajeynayna insha Allah ta'ala barakallahu fik الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله. Öncelikle hanımefendinin gelmesi bizi çok mutlu etti. Yani Amerika'daki güzel çalışmaları, kendi ülkesindeki yani Somali'deki Somali vatandaşlar için yaptığı şeyleri biz de bir Müslüman kardeş olarak biz olmuş gibi seviniyoruz. Çünkü Somali'nin çok güzel şeylere ihtiyacı var. Ben elhamdülillah bir defa Somali'de bulundum. 2007'de bir organizasyon için gitmiştim Somali'ye. Çok güzel insanlar vardı Somali'de. İlk defa Somalileri o zaman tanıdım. İlk defa dostluklarım Somalilerle onlar oldu ama şu anda elhamdülillah dostluğumuz daha bir pekiştirmiş, beraber iş yapmış, hayırlı işler yapma meylindeyiz. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim sistemine güzellik katacağımız gibi dünyanın eğitim sistemine de güzellik katacağımıza inandığımız işler yapmak peşindeyiz. Bu anlamda sizi burada görmekten de mutluluk duyduk. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu selamu ala Resulillah. Ama ba'da, selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sheekhuna Sheekh Maxamed Idris iyo walaalkeen brother Tamer. Maşallah lagu soo dhaweeyay iskuulkan sharafta leh maartay mustaqbalka runtii ugu wanaagsan awlaadayada awlaada muslimiinta maşallah wax lagu faano wax lagu farxana way tahay runtii insha Allah taala Soomaalida waxay u baahan yihiin runtii markay indhahooda ay saaraan iskuulkan oo kale ayaa ku soo yaaci doona hadda waa maqal waxa weeyaan insha Allah taala waa school from pre-K kindergarten all the way to high school marka waxa weey ma sha Allah oo Islamic school leh oo wixii dhan activities ki leh swimming pool leh basketball marti gym ki leh wax kasta leh yani ma sha Allah school aan wax aan loo dhiga aan lahayn weeyaan aad baan ugu faraxsanahay inaad igu soo dhaweyseen iskuulkan sharafta leh meel ka wanaagsan oo lagu soo dhaweyn lahaa maba jirinba taasaan yani aan aaminsanahay aadna waan ugu faraxsanahay qalbigayga uu ku dagay waxaan la talo carruurta xageed iskuul uga raadisaa maasha waan maqlay iskuul inaad maartay aad prepare gareynayeen laakiin maanta waa man dhex fadhiyaaba waa xafiiskii sheekhan fadhiya kursigiisa baan ku fadhiyaa this is beautiful executive desk so beautiful furniture maasha Allah waxa weeyaan everything was made in Turkey waxa weeyaan the good quality way the best quality way wax kastaba marka alxamdulillah rabbil alamin insha Allah taala hada markaan noqdana waxaan message-kayga baan wada gudbinayaa hadii Ilaahay raali ka noqdo adiga laba bilood meelaha way ugu qaadanaysaa insha Allah taala kadib yani saan u soo guuraya guriga waan helay guriga waan gatay alxamdulillah rabbil barita magaciga lagu qoraya insha Allah taala ana lacagta u shubaya insha Allah marka wixii ka furniture-ka already waa order garay wax kastaba marka waxa loo baahan yahay inaan maartay xaajigi iyo caruurtii iyo yimaadaan inkastoo xaajigu yiri xoogaa waan ka dambeynaya laakiin haddana insha Allah waqti Ilaahay saamiisa soo qaado laakiin I will be in and out waxaan rabaa in caruurta keeno markay waxoo dhan ay sar noqdaan kadib aan baxo haddana imaado ani waxaan inaan soo guro soo guro rabaa insha Allah aakhirka halka ku wada dambeeyno biidinillah marka Soomaaliyeey walaalayaal runta xaqiiqda hadda doonaysaan imaada wadankan Turkiga
wadan wanaagsan oo sharaf leh oo na jecel oo maartay shuyuukhdoona joogaan oo cimiladiisa aad iyo aad u wanaagsan tahay ilmihii ayna ka baqaynin maartay in la ka xado idinkii maartay ku dhowrsan tihiin oo qalbi idin degayo masaajidadii everywhere aadaankii aad ka maqlaysaan wax alloo dhigo adduunka inta lagu nool yahay waa waxya waa mataac al-ghuruur weeyaan marka adduunka inta la nool yahay in diinta lagu dadaalo awlaadina loogu dadaalo marka aakhir la tago qof walba amalkiisa weey marka insha Allah aad iyo aad baan idinku mahad celinaya jazaakumullahu khayran baan idin leeyahay labadiinaba iyo dhamaan wiilasheena dhalinyarada ah ee inta ordaysa inta xadoobay inta maartay ilaahay jazaakumullahu khayran aan idin leeyahay biidnillah next time insha Allah inta iska arki doono insha Allah wa ila liqa ba idin leeyahay insha Allah Allah معاكم insha Allah jazaakumullahu khayran assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh